qarnigii aynu soo dhaafnay siiba ahaan sanadii 1948 baa loogu talagalay inuu dumo. hase ahaatee hadda way ka soo wareegtay 74 sano ismuu doorinay watarkiisii. qisada godka cajiibka ahaatee xogaanad hore u maqan. كتب دي ارام عامس لعبت هذا بحنا واحد صور بعد عربك صورني يو واو gobolka Sanaag jannada dalkayga mar waliba waa timaada magaala madaxda gobolka Sanaag xiri gaabo adigoo dalxiisaya waxa maankaaga iyo maskaxdaada ku jiray ugu horeeyay inaad qabataa wax weeyaan inaad aado xagtana soo dhigto buurta daalo kuna soo ildoogsato bilicda cajiibka Allah subhanahu wa ta'ala halka ayada ah dhigay. warkada wartacab ka adarkaysan waxa lagu bixinayaa waxa weeye wadhaga tuurka aragoo hadda waxaan maraynaa faafkii hore ee buurta daalo war abduljido barkaale kaale xajarkan tuuray saaxib iyo energy-gan ku tuuray kaaga ka badnaa way u qalantaa inta ayeen ka badan wayna dhufaantay baan maqlay marka wax loo naxariisto maaha islaantu waxa weeyaan waliba kaliya taa halka way ku nasatay baa leeyahay gurigeedii ma wahayn kumay dhiman xabaasheedii ma fadhiga fadhiista halka ayaba waxa soo dhagax loogu tuuro war rag waa cil qabaya waxaanu sii socon doonaa safarkeena hore waxaanu sii gali doonaa buurta inaga oo wax weeyaan jirkii weynaa sidoo oo kale doogii tabca ka soo dubi doona muuqaalo hore aadeen uga arag oo wax weeyaan aad u qurux badan aanu ka socon waxaynu soo gaadhnay daalo buurta daalo wallaahi billaahi tallaahi bilicdeeda soo madar wax la mida weliga ma arag waayo markii ugu horreysay in halka tan iyada soo gaadho yaa waduu halkan gebi weyn baa ka laalaada waa gebiga haddii jeer la isku soo suuro haddii aan idin tuso qotadiisa iyo dhirirkiisa wallaahi billaahi tallaahi halkan buurta daalo waxa weeyaan buurta daalo waxa weeyaan halka ugu caansan waxa la yiraahdaa gebigeeda had iyo jeer halka ma soo halkani geed yar oo aad u gaaban oo waxa weeyaan ka laalaada gebiga kan ah hase ahaatee waxa lagu jabiyey oo burburiyey ciidamada ilaalada ee ilaaliya daalo sababtuna waxay ahayd khatartiisa aad u badnayd oo waxaaba suurtagal ahayd inuu qof ka shaloodo ama uu ka dhaco gebiga kan ah ugu caansan buurta daalo sidoo kale wuxuu caan ku yahay wixii laga tuuraaba way soo noqdaan ma bintii noodisa qayraan oo iga qabo عاقد ويا قف وصل نقنية لكن عاقد هي وحيابها في تفضي ويصل نقنية. Oh shit! Here we go again. ليش فين؟ وارغيرا واحد صبران كذا. يا ود. كوسن تسع أصحاب. شوف عنده فلت فلتي يعني والله ورد. halkan bay dabayshu socotaa dabayshu yaani marka halkan ka soo socoto wixii loo tuuraa dib bay u soo noqonayaan marar horena waad aragteen bay la tahay oo laba saddex socod فعلي واو bursa daala kaliya ta kuma caanaha wax weeyaan joogeeda aad ka dheer asaahti waxa baa caan ku tahay waxa kamid waa buur 12 wax bilood ee sanadka kooban yahay baa cagaaran hadda waxaan dhaxolaynaa kaymaha buurta ku yaala runtii way qeyr baan helay waday qadeereed ma raacnay wallahi runtii jawiga malaysan maysid wallahi wana jawiga malaysan ahayn saaxiibka qeyraan baa la socda qeyraan isagu reer ciri gaabo salaada jimcaha waxaad soranaysaa maalin walba ku soo tukada halka qeyraan saaxiib
horta anigu toddobaad kimsa jeer baad timaadaa meesha toddobaadka waxaa laga yaabaa wallaahi jimco kasta ama khamiis kasta inaan dalxiisayaal soo kaxayno صح aan buurta nimaadno meeshan anagu hoygayaga waxaan leenahay dadka inta ku soo dhawaado kaale iskaga baashaalo aad iyo aad runtii wadiiqada iyo wadada iga horeysa haddaan idin tusay aan marayo waad ashqaraaraysaan waa tan wadiiqadan maraynaa dhan walba dhir baa naga xigtay yaa subxaan halka tan ahina waa gebigii waxa weeyaan buurta waxaan ka nimid goldhiig doogii tabca ayaabaan maanta dhan soo jefinay hadda waxaan ku sii soconaa waxa weeyaan godkii tabca godka tabca intaananu gaadhin waxaa jira isla qolka tabca waa qolka kan ah balkaali gudaha horta u gal leh waa qolka weyne caadigaa weeyaan waqtiga ingiriiska ayaa la dhisay runtii waxa weeyaan waa meel aad caadi u degi karaysa talabaad waxaan kaga yaabay inta aan dhex joogay daalo kuma arag cayayaan ama mas ama waxa weeyaan jiifa saaxiibkii qaryaan ila joogaa wuxuu ii sheegay waxa weeyaan xayawaanada ku nool yacni ugaarsatada ay u badan yihiin dacwooyin iyo waraabiyaan labadana da qaryaan way iska arkayaan soo ma ciddi dalxiis u timaada labadaas laba bahana waaweyn oo iska war dhagax la dhaca koona laakiin se baal hoose oo yaroo dabhaliira laga cabsan jiray ma dhuman karaya xabad male niyo dhirta dhex seexdan iyo hadda waxaan waxa weeyaan godka tabca albaabkiisu waa kan dooga tabco ku yaala dooga tabcana waxa weeyaan waxa uu ka tirsan yahay buurta daaro waxaan sii wadan doonaa safarkeena asxaabtii kale way iga horeysaa hadda waxaan u helay anigu si aan bal godkan taariikhiga ah idiin tuso hadda waxaan ku suganahay dowgii tabco halkan aan saaranay waa mahlaka weeyaan jar baa iga hooseeya aan ku qiyaasay dhererkiisa hadduu u yaraado 200 oo mitir laakiin runtii waxa weeyaan way u qalantahay inaan halkaas soo fulo bal waxaan idiin sheegi doonaa muuqaal aad u cajiiba buur baan saaran hadda buurtii waad aragtaan oo waxa weeyaan in badan way iga sarreysa ku darso halkan aan saaranay buurtan aanu maraynana dhexdeeda laga disay buurta qaybna way naga hooseysaa muuqaalka bal aadka cajiibka u ah waxa weeyaan bal ay koobsatay goobta tan magaceeda waxa la tabca waa goob waxa weeyaan qadiimi ah taariikhi ah godka kan ah ee la qoday waxa weeyaan waa buur dhexdeed baa la dalooliyay waxaan hadda soo dhaafnay qolkii tabcuha kana waxa loo yaqaanaa waxa weeyaan godka tabca gaadiidka waxa weeyaan ayaabaa loogu talagalay inay ka gudbaan dowga tabca hadda jeer waxaan naqaanaa mashaariicdu markay dhammaadeen hay'adaha ama waxa weeyaan cidda gacanta ku haysaa waxay samaysaa board ama sumad lagu garanayo mashruuca kan ah tabca waxay leedahay sumadda taasi ah runtii intaasaan u jiraa waa aad bay qadiim u tahay garan maayo runtii waxa halkaa ku qoran waxa iga muuqda oon halkaa ka eegi karaya sanad yacni ama taariikh ku xardhan ah oo sheegaysa sanadii 1940 iyo ma afartiiba ma sideediiba ma lixdiiba intaasoo nambar baanan kala saarahayn magaca halkan ku qoran ama qoraalka halkan waxaanan xataa kala saarahayn waa English baan filay halka ereyga detailed baan arkaa magacyada halka ka muuqda ee waxa weeyaan ku suntan waxaan filayaa qaar badan oo kamid way baaba'een laakiin ereyga Ravanello ayaaba halka iga muuqda goobtan taariikhiga ah tabca la yiraahdaa haddii aad doonaysaan waxa weeyaan waxay ku taallaa gobolka Sanaag ilaahayna ilaa war meel khatar saaran hadda waynu sii socon doonaa waynu sii daadegi doonaa insha Allah bidmillahi alkariim waxa weeyaan aad baan u gaajaysannahay inta wax weyn aad wanaagsan baan rajaynaynaa wax weyn asxaabta iga horeysa ay sii sameeyeen maqaaxi baa naga horeysa maqaaxidaasna kooda cuntayn doonaa ina marsha
ماشي داريد waan kasoo daadegay alxamdulilah ilaahayna naga soo nabad saaray haddaba waxaan hoos soconaynaa dowgii tabca dowga tabca waa kan haddaad si fiican u eegto waxa weeyaan dee waa buur la dalooliyey baan odhan karaynaa xabad ciidi kuma taalo oo dhagaxaanta waaweyn ee salaxa weeyaan dowga tabca waxa weeyaan waan ka bixi doonaa intaanan ka bixinsa laakiin view amaba muuqaal baan idin tusayaa runtii aad ula dhici doontaan balna marsha bal qaala ilaaga bal muuqaalka kana ورياضة مش عين كاسة وان صار من العوالات كيف أنا وضع صعن meeshan marina baashe hadal iyo energy aan jirin naga dhamaan dira baashe عبد ما كان نعملوا نعمل ruuxan koori tuugi ugu weynaa maanta dili weeyay aanu maanta oo ku argudiya saaxiib anu kale waan arsanaya nin arsanayaan magaan ka baxaa hore waxa loo yidhi maan ka baxaa mise kula argudiya heeg ma waa dila duulaan tagaysaa cabdi qani halka fadhiista yo halka yar waa lagu talagalay fadhiiste sahal wuxuu dhigay hadaba ay dhageysan aniga mid baan ku sheegaya abdallow ha no guluubeen way deedu kala jabnaa way waa la isu keen adeegsanaya way taliye kawle hay famarowdina iyaga la isku jabiya marka mid baan ku sheegaya haye in baa la qabanaya صاحب أما ضاود أدد وما تصنتي موقال كنا كان هديت هل كان نلسو قاعد واحد كده كان تايوان نلا صوت الحيستي بورتي داليات كو قروح بدنيد إيد الكيد هو تصو عرقتي الدوغي تبع يسدو كل جود كيدي سدو كل قل كيدي آد قاعد تجيبها oo soo aragtay waxaan kaaga soo duubay muuqaal aanad wali hore u arag hadda waxaan ku suganahay xiriir libaax waxaan u soo gaarnay waxa weeyaan waxa ku taala maqaaxidaasi aad bay u kooban tahay saa ahaatee cuntadeedu dhadhan bay runtii leedahay maadaama aan goordama ku soo beeganay waxaan waxa weeyaan maqaaxida tan lagu diyaariyay sabaayad iyo shaah laakiin ma sabaayad baa tiri biisadad magaalada ku cunto runtii ka dhadhan macaan waxaan ka codsanayaa muuqaalkiinan haddii aad halkan soo gaadhay inaad ku soo birto kanaalka adigoo subscribe taabanaya videogeena kana ahna like gare una sii share gare asxaabta si uu wada gaadho dadka oo eedan muuqaalka xigeentan isugu iman doono nabaday wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu away